Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Haddii ay tahay markii kuugu horeysay subscribe saar, fiidiyogana like fara badan saar sababtoo ah waxay naga saacidaysaa in muuqaalkeenu dad fara badan ay arkaan si markaasi aan u helno daawadayaal fara badan. Mahadsanid. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. haddaba muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa sharciyo u yaala dalka Kuuriyada Waqooyi. yacni waa sharciyo aad la yaabi doonto marka aad maqasho aan maskaxdaada galayn ood oran doonto dalkaas ma sidaas ayuu noqday. Si aan wada ognahayba iminka dalka Kuuriyada Waqooyi waa dalka ugu wax soo saarka badan caalamka. saasay tahayna wuxuu leeyahay sharciyo adag aad la yaabi doonto markii aad maqasho. lama ogola inaad timaha sidaad doontid u jarato, yacni lama ogola in timahaaga aad sida aad rabto haddii aad food ka saaraysid haddii wax kale aad noocaad doontid u jaranayso lama ogola inaad timaha sidaad doontid u jarto. xukuumadda ayaa waxay sheegaysaa qaabkii aad timaha u jaran lahayd. xataa ninka kuu jaraya looma ogola inuu qaabkii uu doono kugu jaro, keliya waxaa loo ogol yahay qaabkii ay xukuumaddu sheegtay. waa sharci la yaab leh. haddii ay ku dhahaan bidaar samayso dee bidaar ayaad samaysanaysaa sababtoo ah xukuumadda ayaa sharcigan sheegtay. sharciga labaad ayaa noqon doona sharci aad iyo aad maskaxdaada kaaga waalaya. saan ognahayba Kuuriyada Waqooyi waxay leedahay saddex telefishin oo laga soo daayo waxyaabihii macluumaad ah iyagoo ka hadlaya codka xukuumadda. lama ogola in saddexdaa telefishin laga soo daayo wax kale, yacni waxaa la ogol yahay wax xukuumadda ku saabsan, heese ammaan ah oo xukuumadda ku saabsan oo keliya la ogolyahay. haddii aad tiraahdo maanta barnaamij baan halkaa lasoo fadhiisanayaa oo dadkan waxu falanqeynaya dee lama ogola oo dee xabsi baad ku galaysaa. sidaan wada ognahayba internetku waa goob dad fara badan kulmisa, dad fara badan isbarta, qoys badan, waxyaabo fara badan, qoysas fara badan isku soo xidha. haddaba dalka Kuuriya ma isticmaali kartid internetka haddii aanad ahayn shaqaale dowladeed ama arday jaamacad dhigata oo weliba ardaydaas arday gaar loo doortay ah. waa inaad ahaataa shaqaale dowladeed ama askari dowladda u shaqeeya, yacni waxaad doontid ka shaqee. lama ogola inaad internetka isticmaashid, keliyaata waxaa la ogol yahay inaad tahay shaqaale dowladeed xagga iyo dowladda aad ka shaqayso. sharciga saddexaad, lama ogola qofku inuu qaraaco qof kaloo dabadda jooga. lama ogola inaad qaraacdo waddan dabadda ah, yacni de waa lagu diidaya haddii aad tiraahdo waan qaraacaya. haddii aad si dhuumaalaysiya iskugu daydo inaad qofkaas la xiriirto dabadda jooga, haddii aad isku daydo inaad la xiriirto qof dabadda jooga waa lagu xirayaa oo halkaas ayaa lagala socdaa, moobilkaaga oo dhan ayay la socdaa. saan wada ognahayba laabtoonnada iyo kombiyuutarada aan isticmaalno badankoodu waxay u badan yihiin marka laga reebo Apple-ka, waxay u badan yihiin ama ku shaqeeyaan software-ka la yiraahdo Windows. balse dalka China waxay samaysatay software iyaga gaar u ah oo la yiraahdo Red Star Korea, yacni kuma shaqeynayo laabtoonkaagu waxa loo yaqaano ama software-ka loo yaqaano Windows, keliya wuxuu ku shaqeynayaa software-ka ay samaysteen ee ah Red Star Korea. qofka dalxiisaha ee dalxiiska u yimaaday dalka Kuuriyada Waqooyi waxaa lagu darayaa qof kale oo xukuumadda ka tirsan, kadibna wuxuu la soconayaa dhaqdhaqaaqiisa, meeshuu u socdo, meeluhu marayo, wax kastuu sameynayo wuu la socdaa. sidoo kale wuxuu u sheegayaa waxyaabaha khaladka ah. haddii aad u baahan tahay inaad sawir iska qaado dee isagaad kala tashanad ka horan sawir ma iska qaadaa, yacni lama ogola inaad sawir iska qaado oo isaga ayaabad kala tashanaysaa. oo waayahay maxaan meeshan u soo aaday haddaanan sawir iyo waxba iska qaadinba ileen dalxiisaan ahay. halkaas ayuu nagaga egyahay waddanka Kuuriyada Waqooyi. laakiin waxaa jira hal waddan oo isaguna iga yaabsaday qaanuunkiisa aan ku darna bal muuqaalkeena, waana waddanka Australia. wuxuu leeyahay sharci aad iyo aad u la yaab badan. nadaafadda ayaa ah shay aad iyo aad u muhiim ah oo qof walba oo muslin ah ilaahay ku faray inuu nadiif ahaado markasta. gurigiisa meeshuu joogo inay ahaato meel nadiifa. magaalada Melbourne lama ogola inaad isku ekaysiiso adoo nin ah gabadh, yacni adoo nin ah ha isku ekaysiinin gabadh sida ninkii dee berigii gabadha iska dhigay ee blue makeup. haddaba muuqaalkeena maanta intaas ayuu ka egyahay. haddii aad muuqaalka ka heshay like fara badan saar sababtoo ah waxay naga saacidaysaa in ay muuqaalkeenaasi dad fara badan arkaan si aan u helno daawadayaal fara badan. mahadsanid.